بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa Cabqari Academy channel. channelkeeni waa channelkeeni kusoo dhawow fadlan like-ta share-ta sidoo kale waliba gambrelkana furo si haddii aad cusub tahay duruusta iyo casharada aynu ka bixino kanalkan oo isla markaan soo dhigno uu kusoo gaaray insha Allah. sidoo kale waxaan rabaa wax yarnaan hordhac yar ka bixiyo intaan casharka u gelin Cabqari Online Academy waxa ka socota duruusay kala duwaneed bishan Mars ay soo socotaan insha Allah. waxaan bilaabi doonaa casharo cusub, duruus cusub, koorsooyin kala duwan oo luqadda Ingiriiska ayaana ka socda, koorsooyin gaaban oo baahida ardada ama bulshada Soomaaliyeed baahida luqadeed qabto waliba baahiyaha gaarka ah dadka qaba waxa loogu talagalay koorsooyin gaaban sida grammarka, sida academic writing-ka, sida pronunciation-ka, sida speaking course, koorsooyin gaaban oo business communication, waa koorsooyin gaaban oo loogu talagalay baahiyaha gaarka dadka qaba in lagu siiyana way jiraan. koorsooyin caadi ah oo basic English course la yiraahdo iyo general English course kala jira. marka insha Allah cid kasta danaynaysa shaashada nambarada ku qoran WhatsApp-ka iyo Telegram-ka ayaad nagala soo xiriireysaan insha Allah. cid danaynaysa xog dheer iyo akhbaar dheer aan idin insha Allah. casharkan ayaan bilaabanaynaa. casharkan wuxuu ku saabsan yahay ama wuxuu ka hadlayaa isla casharkii hore ayuu yarad la socdaa laakiin wuu ka yara duwan yahay, shaqo isku ma laha. title-ka hore ay iska leeyihiin laakiin way kala duwan yihiin. casharkii hore wuxuu ahaa possessive adjective, walow laba qaanadood ay kala yihiin oo marka 8 speech-ka la eego midna uu noqonayo pronoun-ka hoos galaya midna adjective-ka hoos galaya, laakiin waxay wadaagaan possessive-ka ay wadaagaan casharkan iyo casharkii ka horeeyay oo adjective-ka aan qaadanay. kanna casharka maanta aan qaadanaynaa waa pronoun, magacuyaal. kii horena wuxuu ahaa adjective oo wuxuu ahaa sifo, laakiin waxay ka midaysan yihiin ama ay iska leeyihiin labada cashir ayaa waxay yihiin ereygan possessive, ereygaas iska leeyihiin. kii hore waxaan leeyahay possessive adjective, kan maantana waxaan leenahay possessive pronoun. waan fahmi karnaa marka possessive pronoun iyo possessive adjective. kan maanta aan qaadanayna waa possessive pronoun, kii aan qaadanayna waa possessive adjective. ardaygu markuu ishiis ku dhacda wuxuu leeyahayba casharkan macalinka ma soo celiyey waaba uu soo dhigay, ma ahane possessive-ka ha fiirine bal gadaal maxaa ku xiga. awal hore wuxuu ahaa possessive adjective, maantana waa possessive pronoun. waa laba qaanadood oo kala duwan. marka 8 speech-ka ama grammar-ka la eego waa sifo lahaansho muujinaysa iyo magacuyaal lahaansho muujinaya. kii hore wuxuu ahaa sifo lahaansho muujinaysa, waxayna kala ahaayeen my, our, your, his, her, their iyo it is ay ahaayeen. maanta marka waxaa noo raacaya possessive-kii, waxaa noo raacaya possessive pronoun. micnaheedu wuxuu noqonayaa marka magacuyaal lahaansho muujinaya. kii hore muxuu ahaa sifo lahaansho muujinaysa. waliba casharkaas waxaa weheliyay example ficilo ku jira oo waliba ficiladaasna ay ahaayeen ficilo lahaansho muujinaya. ficilo lahaansho muujinaya, sifo lahaansho muujinaysa iyo magacuyaal lahaansho muujinaya. labadaas sifadii iyo ficilka lahaansho muujinaya walow cashar ahaan uusan ficilka lahaansho aan muujinaya aanan u qaadanaynin, laakiin possessive adjective-ka example-ada aan ku siinay soo noo soo galeen. I have a car, gaariyan leeyahay. my car, gaarigayga day. I have a car, have-to waa verb lahaansho muujinaya. you have money, lacag haysta. your money, lacagtaada. marka meesha waxaan fahmaynaa fal lahaansho muujinaya, sifo lahaansho muujinaysa iyo magacuyaal lahaansho muujinaya. okay, magacyaalka lahaanshaha muujinaya qaacitaankiisa bal aan eegna. marka waxaa la yidhi magacyaalka possessive pronouns-ka ayisir waxaa loo isticmaalaa to show in lagu muujiyo ama inay muujiyaan possession lahaansho ama ownership. waa isku halkii. kii hore cirabkiisana wuxuu ahaa ama qaacitaankiisa possessive adjectives are used to show possession. possessive adjective waxaa loo isticmaalaa inay muujiyaan lahaansho. hadda maxaan leenahay maantay magacuyaal sifeedka, magacuyaal sifeedka magacyaalkan lahaanshaha tilmaamaya are used waxaa loo isticmaalaa to show inuu muujiyo
position and ownership waa isku mid erayga position ama ownership waa lahaansho qofku wuxuu leeyahay ama leeyahay ay noqonaysaa marka okay haddaba possessive pronoun possessive waan soo gaabsanay POSS aan gaabsanay possessive pronouns waa kuwan possessive pronouns waa kuwan ila soco haddaba possessive pronounka marka laga hadlayo possessive pronoun yaa ah okay meeshii awal possessive adjective-ka ay ka ahayd my maanta maxay noqotay mine ku dhawaaqa mine meeshii ka ahayd our esa lagu daraya waxay noqonaysaa ours ama ours meeshii your ka ahaydna waxay noqonaysaa yours meeshii your ka ahayd waxay noqonaysaa haddana yours meeshii ha ama her ka ahaydna waxay noqonaysaa hers meeshii his ka ahayd intaas kale waxba isbedelay mydu waxay noqotay mine ourta esa kusoo kordhay yourta esa kusoo kordhay yourta kale esa kusoo kordhay herta esa kusoo kordhay laakiin his maxaa wax kusoo kordhay haba yaraatee ma jiraan waa spellingkiisii ama sidii ayuu u qoran yahay laakiin dhawaaqa isbedelaya halku his ka ahaa inta his la leeyahay waa la jiidaya there meeshii ahaydna maxay noqotay there is halkaas eray oo hista ah ayaan isbedelin inta kale waxba iska bedelay qolada ugu yar waxa ku darsamay qolada kalena waxba iska bedelay marka meeshii my ahayd waxay noqotay mine meeshii our ahayd waxay noqotay ours meeshii your ahayd waxay noqotay yours meeshii your ahayd waxay noqotay yours meeshii her ahayd waxay noqotay hers meeshii his ahayd awal waxa leeyahay his hadda waxa leeyahay his la leeyahay wala jiidaya examples aan ku arki doonaa there maxaa la leeyahay marka there's maxaa la there is online okay waxaan rabaa marka inaan concept ahaan waan fahanay definition kooda magaca ciwaanka title wax loo isticmaalay magaciya lahaansho muujinaya waaye waxa loo isticmaalaa in lagu muujiyo lahaansho ayagina waa kuwan mine ours yours hers his iyo theirs waa exampleska balan eegna marka exampleska balan eegno meesha waxa yaala mine waxayga mine is red kaygu waa gaduudan yahay but yours is blue haddaba fiiri waxani marka la isticmaalayo possessive adjective-ka waa magacu raacay kan laakiin magac ma raacay laba shay waay marka ina waxa la hayo ya aad u jeedo waan ku imid waxaan ku yiri this is yours waxaan ku dhahay this is yours adiga iskale kan ama tan adiga iskale waa shaygu wad aragtaa ana waan arkaa adna wad aragtaa laakiin qofkii naga sii jeeda ama aan noo jeedin ya this is yours tas kan waa kaaga umbu maqlaya mobile miya qalin miya computer miya gaari miya lama yaqaan laakiin waxa laga wadaa ama wax aan sheekadooda lahayd tusaale xaafadan tuugo badan ka dhacday ama tuugo badan ka jirta taleefka iga qaateen sheeko telefoon la hayay marka taleefka macna qofka laga qaatay sheeko telefoon la hayay no telephone ana soo booday marka waxaan dhahay they took mine last night kayga xalay qaateen marka iraada macnaheedu maxay noqonaysaa marka kayga maxaa sheekada horta lahayn maxay waxa laga hadlayay mobile waxa la qaatay marka waa mobile kayga waa marka baawurtii hebel baawurkaaga hebel gaariga waa iska gaday iyo waxa la sheekay markaas ay mine is in the garage kaygu garage ku jira waxa garage ku jira yaa waaye marka ilaa my ka ma dhihino magaci meeshii ma ila imaane kaygu garage ku jira sheekada la hayay maxay ahayd dambe gawaariga soo ay tama jaamar gaarigii waxa garage ku jira marka saasaan u fahanno marka ya waxa le mine is red kaygu waa guduudan yahay but yours is blue like kaagu waa blue waa qalin kaygu waa meesha ka dhilaha my pen is red but your pen is blue qalin kaygu waa guduudan yahay laakiin kaagu waa blue fiiri marka waxa la xusayaa waxa la soo qaadanaya macnaha magaciya kana la soo qaadanaya isaga mine book ma dhigi kartid yours house ma dhigi kartid magac ma isticmaalaysid marka mine is red kaygu waa guduudan yahay but yours is blue like kaagu waa blue ours can is not far maxaa la yidhi keena ma foga iskoola laga hadlayay ama guriga laga hadlayay
iskoolkeena waa fogyaa kaaga waa fogyaa keena oh markaasaa idhi our is not far maxaa waaye keena ma foga what does that mean marka what does hours stand for hours maxay u taagan tahay marka sheekada lahayd maxay school soo maahayn maxay marka hours not far keena ma foga macna maxaa waaye iskoolkeena ma foga waa yours kaagu was too expensive aad ayuu qaali u ahaa yours kaagu was too expensive aad ayuu qaali u ahaa tuuda marka la isticmaalo iyo very expensive marka la isticmaalo waa qaali la iibsan karin qof kasta uu iibsan karin very dear laakiin xogaa macquula waa qaali laakiin la iibsan karo tuuda iyo very differencegooda maraan casharaan ku arki doona insha Allah marka yours was too expensive kaagu aad u qaali u ahaa where is yours kaaga out waxaan ku dhahay mobilkaaga ii dhib maxaan ku dhahay mobilkaaga ii dhib markaas waxay tiri where is yours kaaga aawe maxay u taagan tahay marka maxaan ku weydiiyey mobile maxaad tiri where is yours kaaga aawe markaasaan ku yidhi they took mine last night keygii xalay qaateen they took teega ka timid baasigeedii waaye they took waxay qaateen mine keygii last night xalay iga qaateen macnaha keygii marka minta meeshan maxaan fahmaynaa marka minta ya waa kana wax noona kuma dhegana yourstana maxaa waaye wax noona lama raacsin yoursta kalena wax noona lama raacsin hoursna maxaa waaye wax noona lama raacsin mine maxaa waaye wax noona lama raacsin sababta pronoun muxuu yahay magacu matala sooma ama subject uu noqonaya ama object uu noqonaya haya waxa la I like hairs waan jeclahay keeda waan jeclahay I like hairs keeda waan jeclahay yours costs a lot kaagu qiimo badan oo ku fadhiya yours waa kaagu costs a lot maxay noqonaysaa marka kaagu qiimo badan ayuu ku fadhiyaa hairs keedu maxaa la I like hairs keeda waan jeclahay mobilkeeda ama shaykeeda ama computerkeeda ama waxkeeda aad mar walba ka amaahsataa markaas aad isticmaashaa I like hairs keeda waan jeclahay yours kaagu haye costs a lot kaagu qiimo badan ayuu ku fadhiyaa costs a lot in badan qiimaha ayuu noqonaa a lotna waa badan costna qiimo waa his waa kana marka dhawaaqii ayaa isbedela mooyaane digaal waxba isma bedel his iyo his kala noqonay his was sold yesterday kiisa shala la iibshay shakal hay gawaari ama mobile ama computer waxba laga hadlay his waa kiisi was sold waa la iibshay yesterday shala la iibsay kiisi marka this is our house kani waa gurigeeni markan maxaan isticmaalnay our oo positive adjective aan isticmaalnay hadaba fiir markaan hadana sidoo faantaan saddexdan example oo dambe ayaan waxaan u soo qaatay maxaa waaye positive adjective iyo positive pronoun labadiiba isla keenay this is our house kani waa gurigeeni waa it is ours waa keeni aan warka bilaabay haye this is my bedroom kani waa qolkayga jiifka bedroom qolka jiifka Allah this is my bedroom maxaa dhacay marka it's mine waa kaygi it's mine qalinka meesha saara waa qaatay it's mine anda waa kaygi it's mine maxay noqonay si kale u dhahdana it's my band marka noonku qaadanaysidna waa in la timaadaa noonkii it's my band waa qalinkaygi haye waxaa la marka this is my brother's bike kan waa baaskiilkii walaalkay kani waa baaskiilkii walaalkay it is his alle maxaa leeyahay markaan his alle waa la jiidaya his ma jirta markuu pronoun ahaan yahay uu kaligi taagan yahay ma loo isticmaalo his lama dhahay dhawaaq waa la jiidaya his alle it is his haye have you seen mine kaygi ma aragtay no maya I haven't seen yours kaagi maanan arkin I haven't seen yours sheekada in la hayo ama wixii in loo jeedo bisa loo isticmaali karaa in warka sheekada la hayo aad fahanto kadibna aad positive pronoun isticmaasho iyo inaad u jeedo laakiin ku yiraahdo he took mine kaygi oo qaatay he took mine maxaa qofkaas ma ku fahmayo hadaa sheekada la hayo waxa aad awal raadinaysa ama aad sheegtay qofku waday ka dragsan yahay ogeen he took mine kaygi oo qaatay mobilka calintu yaalahay markaasaan ku he took mine mobilka xasan intuu yaalahay he took mine kaygi oo qaatay waa macna kiisu ka tagay maxaa kaygi oo qaatay mana waa inaan fahanaa marka qaabka loo isticmaalo positive pronoun hadaba positive pronounka meeshan maxay tahay meeshan maxaa noo yaala halkan maxaa iigu qoran halkan waxaa iigu qoran plus faba iigu qoran hadaa xasuusataan rulkii hore xaq wuxuu ahaa my your our iyo his iyo her iyo their iyo it is maxaan dhahnay ustaad plus noun noo qoraa
halkan waxaan leenahay plus verb qoladana verb ay horgalo u noqonayaan ama verb ay dibgalo u noqonayaan maadaama ay pronoun yihiin intaas aan fahanno marka maadaama ay pronoun yihiin noun ama horgalo u noqonayaan ama dibgalo u noqonayaan intaas aan fahanno malaynaya marka haddaba marka possessive pronouns oo magaciyaal sifo lahaansho meesha ka ahayd awal inta waxa waa magaciyaal lahaansho meesha mayd ahayd mine meesha our ahayd ours meesha your ahayd yours meesha your ahayd yours meesha her ahaydna hers meesha his ahaydna his alale marka okay bal an example area balan qaadano example area aan la isla nimaadno ayagoo subjectia ayagoo verb loo isticmaalayo haye fiiri meeshaan marka waxaan nahay ha markaan idhaahdo her bag is yellow boorsadeedu waa jaalo maxaan sameynayaa marka waxaan leeyahay haddana fiiri Harris is yellow keedu maxaa waay Harris is yellow keedu waa jaale keedu waa boorsooyinka sheekada la hayay keedu waa jaale sheekada maxaa waay ayaa la hayay marka keedu waa jaale waxaan la haynin ma socon karaa marka haddaba fiiri haddana waxaan lahay this is our school kani waa school keeni this is our school kani waa school keeni ma fahan hadda meesha u socdaan kani waa school keeni si kale u dheh marka haddana kani waa school keeni si kale u dheh this school ka soo qabo marka this school haye is ours day this school kan is ours waa keeni school kan waa keeni okay your pen is on the table your pen is on the table maxaa waay qalinkaagu miisku saaran yahay si kale u dheh marka yours maxaan leenahay yours oo lagala jeedo maxaa waay yours kaaga haye is on the table yours is on the table haddaba inaan fahnan u malaynaa marka yours is on the table qalinkayga caawa waraa qalinkayga ma la qaataa tiraaye markaasaan kor yours is on the table halkan kaa dhihi lahaa your pen is on the table haddaba fiiri marka possessive adjective la isticmaalayo iyo marka possessive noun la isticmaalayo labay kala tahay haddaba possessive adjective marka la isticmaalayo waa plus noun marka possessive noun la isticmaalayana maxaa waaye ama subjectige plus verb waaye subjectige verb hadda fiiri verb horgalo u noqonayaan ama verb dibgalo u noqonayaan ama verb complement u noqonayaan intaas way meena inaan fahanno haddaba marka possessive pronoun-ka waxaan u malaynayaa inaan hadda concept ka haysano sida loo isticmaalayo macnaha markaan magac lama isticmaalayo where's my book meesha kale waxaan leeyahay where's mine kayga aaw where's yours kayga aaw maxaa waay I ate mine maxaa quraaca qof loo dhigay markaasaan I ate mine waa eat baasigeeda sooma kayga waan cunay waa I ate mine kayga waan cunay haddaba waxaan malaynaa inaan fahanay qaabka loo isticmaalayo possessive pronoun mine ours yours hers his alale taas kullu qoraalka waa isaga mid his book iyo this book is his alale this book is his halka maxay noqon marka this is his book kan waa buugiisii theirs waa la mid marka theirs iyo hers iyo yours iyo ours iyo mine iyo his ba plus verb waa horgalay dib kale noqonay laakiin magac habayn book mine book ha isku dhehen yours car ha isku dhehen your car dheh aysanayna yours dheh this is yours this car is yours gaarigan waa gaarigaagii haddaba casharkeenni maanta aan qaadana insha allah halkaas ayaan ku ekeynaynaa waa ustaad cabdinuur maxamed samater sidoo kale casharadii duruustii kala duwaneyd ee ka socotay abqari online academy way ka socotaa koorsooyin kala duwan oo aad muhiim u ah waliba baahiyaha gaarka ah ee ardada Soomaaliyeed inta badan ay qabaan ayaa kamid yihiin academic writing-ka oo course ah grammar speaking course pronunciation course business communication course koorsooyinka gaaban
oo shorty ahna way jiraan insha Allah iyo caadigii basic English course ah iyo general English course oo isagana caadigii ah oo labada ardayda bilowga ardayga aan bilowga ahayn loo kala bilaabay insha Allah hadii la yiraahdo oo Ustaad Cabdinuur Maxamed Samatar Ustaad Abqari oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo waa waqtigiisa kale insha Allah like-ta share-ta iyo kambalka inaad furataan lana wadaagtaan bulshada Soomaaliyeed si u gaaraan cashiradan kala duwan ee aad ka helaysaan ama la soo dhigayo had iyo jeer insha Allah hadii la mahadsantahay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.